waxaa magaalada Burco ee gobolka Togdheer habeennimadii xalay ahayd oo ku beegan 2 bisha Sebteembar 2020 laga daafuray xarunta dhaqan celinta iyo daryeelka waxbarashada Al Khayraat oo loogu talagalay in lagu saxo dhalinyarta ka leexatay nidaamka ay nafartay diinteena suubani. xaruntani laga daafuray magaalada Burco waxaa si qoto dheer uga warbixiyay maamulaha Al Khayraat Cumar Hayba Jaamac. raxmadda madarka haddii dhulka uu waayo dhulka abaar buu noqdaa buuhiyu noqdaa xanuunaa ka kaca gaajo macluub baa ka dhacda dhibaatooda baa ka dhacda raxmadda waxyiga haddii qalbigu waayana sidoo kale ayaa balaaya ka dhacda marka dadkii waxa haysta raxmaddii waxyiga ayaa badankooda ka maqan marka in raxmadda waxyiga bal qalbigoodii lagu shubo ayaanu isku daynay xarunta waanu bilownay qalabayntoodii oo dhan waa dhammaynay hurdadoodii iyo cuntadoodii iyo waxbarashadoodii waa u diyaar garaynay bal waxaanu saboorta xaruntan horta bal bilaabo dhaqaajiya marka dhaqaajisaan de shacab iyo dawladda u wada joogtaane balota marka hore idinku dhaqaajiyo oo horta kubadda marka hore garoonka keena hadda waa bilow insha Allah taala hatta meeshan ku bilownay de meel lagu talagalay maaha waa guri inkastoo gurigu weyn yahay oo ilaa 6 bilood uu ku fadhiyo oo 9 bal ay dhisan tahay oo uu dhowdhow yahay haddana de meel weyn bay u baahan tahay xarumahaas oo kale de arlo weyn bay u baahan tahay meeshu waxay ku taallaa halkan niyuuba waddankiisa waqooyi dhanka dambe kaalinta sahal telefoonaduna waxaan filayaa inay boorarka ku qoran yihiin cid waliba ay halka kala soo xiriiri doonto. intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen labada xusbi ee kulmiye iyo wadani xildhibaano macallimiin aqoon-yahan iyo haween kuwaasoo dhammaantoodba sheegay baahida loo qabo xaruntani. dawladayna haysata ee iminka dhisa waxaan ku jeclaaday habeenkii ugu horeeyay waxay tiri waxaan sidaa u maqlayseen mooyaane waxaanu qabanaynaa dadka dhaqan celiska lumay soo saakooydaan maqlay dadka timaha iyo magaraysa foolxumada sida sharci darrada ku socoray aad iyo aad baan ugu bogay waxyaabaan xiiseeyahay waa xarun runtii waxa weeye curdina waa fikir wanaagsan oo waxa weeye waqti wanaagsan ku soo aaday inaynu waxa weeye korino oo aynu garab gallo oo waxa weeye dhammaan la iska kaashado waa dhibaato jirta oo waxaynu ku soo faruurmay inagoo bulsho reer miyiga dhaqamadii caalamka ka jiray oo dhan oo oodahoodii wataba mar kaliya ina soo galay awal buculaysku annagu masaarna waxaan biliifsanahay dhibaatada ugu badan iyo dhaqan xumada ugu badan in xagga ragga ay ka timi waayo mas'uuliyadii ay hayeen oo dhan way dayaceen haweenkiina waxba way u taag waayeen reality-ga marka la doonayo dhibtii guriga haysataa tii carruurtu iyaga haysataa way ogyihiin run ahaantii xaruntan magaceeda la yiraahdo Al Khayraat oo leh magac aad iyo aad u qiimo badan waa xarun macno weyn ku fadhida waayo jiil ama bulshada qayb kamida oo xaaladoodu ay aad iyo aad u hooseyso hiil iyo hoob u baahan ayuu xaruntani ay u soo gurmatay ugu horeyn waan u ducaynaynaa waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waan la shaqeynaynaa لأنه قفك إن هلك على جسوا صار قفك أرجو وقف ولا ما بيسوي قف مير قواعد أنا ممكن أقرأ أنا أسوي كنوع عصره وحوي إن هلك هذا الكلام ووضدر ارتقطنا حرمتنا أساسية وحلو جعينا ووضدر فهي اللي تعليه هو بدره إني لا هيجيكو كان عاوني وثلاثين يا والخبرة دي بيجي هوري أنا كتيري كهلي وحيوبها هي المنهج كي لو توبر لها قف لولا شيء كذا عيوية وحلوبها هي منهج كي لو توبر لها marka labaadna waxa loo baahan yahay fankii iyo dhaqaalihii lagu hayn lahaa xogeeya gilibna baa laga rabaa buuliye xogeeya waxa laga rabaa dhulkii ballaarna ee danta guud ah ee maalintii dowladda ku baaqeen ay yiraahdeen ummadda oo hayna inay xarunta la barbar inoo siiyaan baynu ku codsanayna halkan xaruntu waxay u baahan tahay dee horta Cumar iyo waa ku dhawaaqeen ilaahayna ha barakeeyo waana mid loo baahnaa qof waliba dee mid foodeer iyo mid ka dheer gurihiisa joogaan uu haya mid kale oo ehelkiisa uu ogyahay oo dee dhaqan xun oo wax badan sameeyay meelo lagu qabtaana waa ilaajyadaas oo sidii Sheekh Jaamac ka warramaya ilaajkaas waa lagu silsilaynaya jiniyaysiba marka laga waaya dibadda loo soo tuuraya oo dadkii rabsho. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo xidhay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer xoghayaha dawladda hoose iyo horjoogaha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer. dhaqan celintu de guda iyo dabadba waynu baahanay kuwii dabadda ka yimina iyagoo halkan dhaqan celin u baahan bay noo yimaadaan kuwii gudaha inala joogina de iyagoo dhaqan u baahan tarbiyad
يا تربية ضباحن أو أي dhaqan shisheeye ku daydeen ayaa iyadana meeshii taala marka waxaan soo ballan qaadaynaa oo aan ku dhiiri gelinaa dadkan maanta iskuulkan furay oo kale inaan isla garab raadno arrin iyo adduunka wixii aan u qaban karno daafurka xarunta khayraad oo runtii la oran karo waxay ku soo beegantay waqtigeedii waxaan leenahay jazaakumullahu khayran dowrkiinni baad qaadateen waan isgarab taagaynaa maxamed saciid gaxnug telefishinka caalamiga ee badda cas برعو أنا وسوحان استعمالها سمتل السجو مو استعماله سمتل أنا وين بدل ما سمتل كه هذا الكراه بس السجو سدا ما سمين كرايا ورما هي رنمية ورنتي أفر اللي باتنك السعادة وحن كه هذا لبكون إيشان بقول أوشيلين هو بلاش بشي أردنا وحن كه هذا $5 أو كلية عادي ما هو محل مرور يقول شيء قويدي فكر oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom